الله نبي الله إسرائيل كوكتر صدا but دين اليهود ولي هايستا بدوا إسلامي بدوا كريستو أمامي بدوا ملحدين انتبهوا إليه dadkii la oran jiray reer banu Israa'iil kuwa hadda jooga qaar badan oo nabi Israa'iil ku abtirsan baa jooga oo waqti dambe diinta soo galay nimanka indha buluuga leh intooda badani asliyan ma walidalik Israa'iil waa wadanka quray mamnuuctay DNA in dadka laga qaado way wadadaan isku meel ka imanin DNA in laga qaado lama ogola Israa'iil كيهود نما ما هو حل اسكو هيا مركب كوان وين مستعمر محتل مستوطن وين يدد دلال كلك سو دولي او دد مسلمه قبصداي او دولكودي ku haysta oo ka qaaday ay yihiin inaad kuwan qirato marka salaad idin ka dhow maalintii dhulkan la idin ku leeynayay qaxdeen dulcadii xiriya qaxoontiga joogteen haddii inta qabaa'il kale ama dawlado kale ama yahuud ama cid kale inta la soo raro burciya hargeysiya berberiya inta la mid la dejiyo oo aadna weli aad rafanayso dagaalamaysid ninka yidhaahda kuwa la soo raray meesha la dejiyay xaq bay u leeyihiin oo dawladda waa rumaysanay maxaad ka rumaysnaan lahayd adigu cid kale ka fikirin meel kalena ha ka raadin maanta qaxoontiga joogtay haddii lagu soo weydaarto burcaya hargeysiya berbero inta ama yahuud la soo dejiyo ama dad kale la soo dejiyo ninka yidhaahda waan u ictiraafay inay leeyihiin oo waayo قرمها الدولة يا عرب عشقته إيوه والعرب إلهي كتاب كيسا كما دقمت كاقا من الدواء عربي قال يا مسلم بويلاذي عربي منافق يا مسلم بويلاذي عربي وحول بويلاذي هذا هو نسقياس محاط رمي سنان لهيد دول عد مالكها جوبتي هذه تتندد للدجيو ولما الله إذا هذا هو اللور رمي سيئ لك إذا هذا مركا وانا اعترافي ووحنا اعترافي إن هرقيسية برعقولة اللي سودتشي إليهين سيدا كرهو ما يسنان الله يدون بلغا الرئيسية أيها الأحبة سياد بري ووحد المني هذا نوحو قرطي ظلمك محتلك أما مستعمرك أما مستوطنك إنانو أقبلين ولذلك هو يان سميدي الساوث أفريقيا كواسي ولد قالمي حولد قالمي داد مدو ونن عادين تكسو دولي ودول دقي ومستعمر بولها لغا كعيو وانو كوغر لها داد لا ظلمين يانو يدهدا يان لا ظلمين وكوغر لها adigu hadaad hiilin kari weyday waxba u qaban kari weyday inaad tiraahdo iyagaan rumaysanahay oo aad wadaadda meel ka daydayda iyo war kale iyo beri baa nebi maxamed qole heshiis la galay iyo war nebi maxamed kuwa heshiiska la galayay isaga ku hoos noolaayeen ahludima bay ahaayeen heshiiska markay buriyeen maxay ku buriyeen gabadh muslimada ay qaawiyeen bas reer banu qaynuqa saddex qabiilo yahuudu nabigu heshiis la galay saddexdaba uu la dagaalamo oo ka saaray wuxuu uga saaray gabadh muslimada bay suuqa soo gashay dahabka lagu iibiyo meelaha wax lagu hayo markaas ay qaawiyeen nin muslim ah taagan baa kii dilay dabeetana waa la buriyay ahdigoodii waa la buriyay aw kullama aahadu ahdan nabadahu fariiqun minhum عهد من كاك قنطمي إلى يمالنت يمادين مجرو بلنا يقالين أنا يبورين مجرو كي نبي محمد نو يبوريين فقد دليل كردغان يا نبي محمد بالله قالي ويبوريين مشركي العرب والله قال هشيس نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام
laakiin qabaa'ilkii heshiiska kula jiray markay ku soo duuleen wuu buriyey. wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa ayaa asal u ah heshiisyada. wain janaxuu lisalm, hadday nabadda u weecdaan adna u weeca baa ilaahay yidhi. islaamku dagaal uu iskaga jira ma laha. hadday iyagu nabadda u weecdaan adna nabadda u weeca baa ilaahay yidhi. kuma odhanaya netanyahu waa nabad dunida u weecday. ayuha alaxiba, awqaafu ghaza 1,109 masaajid bay dumiyeen. hadda 1,109 masaajid iyo 3 kaniisadood. ayuha alaxiba, 315 qof oo ducaada bay dileen. 200,000 oo muslim ah iyo dadkii kale meesha deganaa isugu jiray ayay waxay dileen iyo waxay dhaawaceen ka dhigeen. waxay aakhira u direen. 2 milyan oo qof ayay gaajaysiiyeen. 91% oo dadkaasi ka midi alamn alghidaa'i ma jira bay leeyihin. waa gaaladu say sheegayso, waa taqaariirta gaaladu ay ka qorayso. gaalaa ka qaylinaysa adduunka. wixii gaal joogay ayaa ka qaylinaya. ghazi maalinta idinku qaxdeen jaamacada maydan lahayn. ghazi 19 jaamacadood bay lahayd. maalinta idinku qaxdeen iskuullada lahaydeen oo dhamme 100 iskuul inaanay gaadhay ama 200 iskuul baa laga yaabaa. 800 iskuul baa meesha ku yaalay. wixii waa la tirtiray, waa la dumiyey. albanki duwali ayaa wuxuu tilmaamayaa 18.5 bilyan waxa lagu qiimeeyey albiniya taxtiya, wadooyinka iyo waxay dumiyeen oo qura ma aha albiniya taxtiya baa intaasiya. ayuha alaxiba, muslimka sidaa loo gelayo haddaad wax ka dhicin kari weyday, haddaad u gargaari kari weyday, haddaad waxba siin kari weyday, inaad tidhaahda ka u gelaya oo dhulkiisii haysta. soo ma ogid dhulka muslimiinta laga soo qaaday dad baa weli furayaashoodii sita, furihii gurigiisa sita. ninka furihii gurigiisa sita inaad tidhaahdo ka ku jiraan rumaysanahay inuu dhulka leeyahay, aakhir xaggee gelaya? adduunka waa la iska noolaan karaa. si xaggaad u socotaa qof walahuba, qofuuna qof kale ha ka fekerin. adigu maxaad ilaahay la hortegaysaa? adigu maxaad ilaahay la hortegaysaa? ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaaf la weydiisto. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله إلهي وحوليه نك إلهي كعب صده إلهي جدوى وبحية. هدي له الظلميي والظلم ترسانيسو ama mid hore ha ahaada ama mid dambe ha ahaada. haddaad dulmi tirsanayso ma muslim kaloo dulmidaaba lagaga baxa dulmigaa tirsanayso bise xal kale la raadiyaa. haddaad adigu dulmanta aad sheeganayso in lagu dulmiyey, ciday doonta ha noqoto cidda ku dulminaysa, soomaaliya ciday doonta ha noqoto, soomaaliya dhe, carab dhe, waxaa doonta dheh, haddii lagu dulmiyo ma miskiin kaloo muslima
والظلم قاعدين كويس مid ka adagi uu haysto ayaad dulminimadiisa inaad ka dulmido ayaad ku farxaysaa farxad moodaysa ظالمka inaad laabta saartaa baad u aragtaa inaad adduunka ku faa'iidayso ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وحليه سبحانه وتعالى ويقرن قوى ظلمك السمية أي منقلب ينقلبون ما شيء نقنيان آخره أيها الأحبة ظلمي وحوك من ترى إلهي سبحانه وتعالى وما للظالمين من نصر إلهي القرآن كإن بدن بكت المامي الظالمين جيناني وحبلهي إنا يقول لهي آخر إلا عذابي إفك إن لو عذابي ولبا مركو وحكا ظلمين يا مسلم ياي قال كإن لو بكادي يا بصور تقالها أيها الأحبة عيدكم لها ضدها النقرن عيدكم لها الظلم هيسكر عني لكن مدوح الظلمين ايانا الظلمين اياه اخر يا دونتونا كفايد ميس اخر يا دونتونا فائده كجهل ميس سيدا ويد آخر يا دونتونا الليبان مايو ظلمي ku haysta si kale oo loola dhaqmaa jira Soomaaliya lixdankii laga bilaabay ilaa hadda dulmay wadaa waana isdulminaysaa kuwa midnimada ku qaylinayana uu dulmi badan qaar ka mid oo badan laakiin إن الظلم أترسنا يسكب أحظه مرنبا مكينيو إن الظالم كأبوه إذا ضد مسلمين حتى اللينية ما هذا ظلم واه ردعي يا وقت يسير إلا بي وفي هذه الساعة أبو صعدة إن ضد الظلم ذا ووحن قفك مسلم كاكتيس مرة بصورتك الكاهي ساسي درادي يا إلهي سبحانه وتعالى وحينات المامية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نبي محمد با إلهي كلي هو عنك هو ظلمك السمائي نبي محمد مركز سيدا لقوله هي إساقا ظلما إساقا لدبي isaga maka wax kasta lagu sameeyay isagii markii meesha ku soo haray laakiin ilaahay wuxuu sheegayaa iyagu dhib tirsanaya haddana wala tarkanu ila alladina zalamu ayadu dhafiga ku soo degtay waxa jira culimadu waxay yiraahdaan jawu nuzul iyo sabab nuzul سبب النزول هو سبب مباشر كي الله يدعه وحاسا دعاء آيات سودكتي جو النزول لو الله يدعه ظروف تلوجري مركا آيات كي سودكيه شغل نبي محمد سيداسي لو ظلمين أيوه أي إلهي كجري أدو الظالمين أدو واحد ظلمين ما يسيب لليه لكن ظالمين تهتاجر ألا لعنة الله على الظالمين بإله إليه إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إلهي القرآن كريم بدن بكت المامية ظالم كي يوحط السنية ألا إن الظالمين في عذاب مقيم خذوا دوي ديرات وقت ونكم السمية لكن waxaan idin sheegayaa haddii lagu dulmiyay dulmigaas ka kor qaad laakiin miskiin kala soo